kula hadal marwadaada hadallo wanaagsan una qurxi habdhaqankaaga adoo badinaya kelmadaha ducada ammaanta iyo mahadcelinta. Ugu yeer hadallada ugu macaan qaali xabiibti iyo wixii lamida. Ku dadaal inaad u hadiyeyso una keento hadiyad waqtiyada ku habboon sida markaad safarka ka timaado ama ilma idin dhasho iyo wixii lamida. Qaladaadkeeda ka indhalaabo wax badan. Isticmaal sarbeeb iyo dulmar markaad rabto inaad qalad saxdo, hadduuna ahayn qalad weyn oo meel ka dhac ku ah diinta. Markay kuu muujiso wanaag ama ay kuu qabato wax qiimo gal ah, u mahadceli kuna abaalgudna sii. U muuji dareen jacayl iyo kolkoolin gaar ahaan waqtiyada hasaawaha. Tusi inaad ku farxayso waxyaabaha ay jeceshahay ama ay ka hesho, kuna dadaal inaad ugu kaalmayso. Haddaad kari karinna ku dhiirigeli si xorriyad ay ku maamusho howlaha gurigeeda iyo kalsooni ay ku faliso arrimaha qoyska. Si ay ra'yiga kuula wadaagto, kala sheekayso arrimo badan, kuwa guud iyo kuwa gaar ahba, intaba si ay u dareento inaad tixgelinayso. Dhagahana u raarici markay kaaga warbixinayso dareenkeeda. Haddaad dhegaysan weydo, waxay raadinaysaa qof kale oo dhegaysta, waxaana dhici karta inuusan daacad u ahayn oo wax un u sheego ama baro. Badi ammaanteeda, quruxdeeda, labiskeeda, cuntadeeda, maxaa yeelay dumarku waxay aad u farxad geliyaa hadalka macaan iyo ammaanta. Haddaad dhaqankeeda ka dareento wax aadan jeclayn ama aan kula fiicnayn, isku day inaad fiiriso waxyaabaha dabeecadaheeda badan ee ay ku fiican tahay iyo inay dartaa waxyaabo badan oo wanaagsan u samayso. Markaad u gafto ama aad qalad ka gasho, ha ka xishoonin inaad qaladka saxdo ood wanaag ku beddesho kana cudur daarato. Taasina waa arrin tusaysa isku kalsooni iyo geesinimo ee ma aha isdullayn iyo wixii lamida. Markaad safarto ama aad fogaato, ku dadaal xiriirka talka iyo waraaqaha xambaarsan dareenka macaan. Una caddee inaad u xiiso qabto. U samee xaaskaaga waqti ay kula sheekaysato si aad u kobciso dareenkeeda jacayl, una wada xalisaan arrimaha qoyska idinkoo is hor fadhiya. Una muuji kalsooni iyo qadarin. Aad isaga ilaali inaad haween kale horteeda ku ammaanto, xataa haddii aad is leedahay ha ku dayato, maxaa yeelay taasi waxay ku abuuri kartaa masayr iyo xasad, waxaana suuragal ah inay cilaaqaadkiinu xumayso. Ku dadaal dhammaystirka arrimaha guriga iyo baahidiisa. Reerkaagana ha kala baqaylin waxaad u heli karto. Iskuna day inaad noqoto sida ay kaa sugaysay si kasii wanaagsan. La soco qaybta xigta ee ku saabsan arrimaha qoyska. Fadlan subscribe saar channelka. Muuqaalkana haddaad ka heshay